كوميشن أهان وحنو آمن سنين مالين والبا إلا ينتن كل واقعين دور الشرع سدعيسو كوميشن كانوا مهضقينا هول بدن يدروفه بدن بكسوق به مهضق يعني ودي مهضق هوشة غلطين هي إن دور الشرع البلاغ هذا إن حق شرعان حنفانا لو قالوا حقي وانا قانايو ليلي ما هي ولدهم بينو ku adkeynayna waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhammaan mas'uuliyiinta halkan fadhiya oo ka qayb qaatay ilaahay ka sugo ka qayb qaatay in maanta aynu halkan joogno jid dheer baynu soo marnay in badan baa la lahaa doorashadu way dhacaysaa ay dhici mayso annagu commission ahaan waxaanu aaminsaneen maalin walba ilaa intaan ku dhawaaqnay inay doorashadaasi dhacayso si gaar ah waxaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo arrin kasta oo commission aan ula tagnaba noo fududeeyay isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah waxaan kaloo idinku wargelinaynaa sida xubnaha task force-ku ay kulli xogta u hayaan dhammaan diyaar garowgii shaqo ee farsamo ee commission-ku sidii aan ugu tala galay ayay marayaan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay inoogu dhameeyo si nabadgelyo ah oo guul inoogu dhameeyo idinkuna qayb baad ka tihiin doorashada qurxinta doorashada taas oo runaantii caalamku soo eegayo gudaha iyo dibadba leena eegayo waxaan rajaynaynaa insha Allah doorashadan inay noqoto doorashadii ugu fiicnayd ee inoo dhacda biidnillah idinkana waxaan idinku codsanaynaa maadaama bisha soo socotana campaign-kii uu bilaabmayo in doorashadaas aynu ku gallo bilaa turxaan in si nadiif ah aynu campaign garayno in muwaadiniintu ay helaan xaqoodii doorashaduna ay si nabadgelyo inoogu dhacdo waxaanu gacanta ku haynaa magacaabista guddidii anshaxa iyo xalinta khilaafaadka sidoo dhigayo xeer 91 oo aanu ayaamaha soo socda magacaabi doona hadii ay ka dhigo waxaanu dhameystirnay oo aanu idin soo gudbinay draftkiisii code of conduct-kii ama xeerkii anshaxee doorashada kaana waxaanu rajaynaynaa insha Allah inaanu sidoo xeerku dhigayo ka saxeexno murashaxiinta inuu baahanahay sida maanta aynu isugu duubanahay ee aynu ugu diyaar garoobayno doorashada inaynu ilaa iyo inta doorashadu dhamaanaysan aan isku duubnaano hadii la ka dhigo anagana ka commission ahaan waxaanu diyaar u nahay dhaartii aanu dhaaranay inaanu sugno hadii la ka dhigo inaanu anagu mar walba ku dhaqanno sharciga iyo xeerka inaanu mar walba anagu aanu diyaar garowno har iyo habeen si doorashadaasi ay wixii anagu nafaray xeerka iyo sharcigu aynu ku dhaqanno hadii la ka dhigo aslee waa maalin weyn oo aynu ka marakacayno dhamaanteen in hawl weyn oo qarabku sugayay oo aynu muddo dheer ka soo shaqeynayno ay maanta gabagabadeedii aynu joogno oo maanta nasiinaysaan musharaxiintii tartanka madaxweynaha iyo ku-xigeenada shahaadadii aanu ku hawlgeli lahayn commission kanu mahadnaqaynaa hawl badan iyo duruufo badan bay ka soo gudbeen oo ay la wadaageen guud ahaan qaranka Soomaaliland oona ku faraxsanahay in doorashadii ay waqtiyeyseen haddana xaqiijiseen in jadwalkiinii ku socotaan oo aan wax idinka qabiye aanay jirin waa soo dhaweynaynaa maadaama xilli doorasho ay tahay waxaanu diyaar u nahay hagidda uu nagu hago commissionku inaanu ku gallo campaign-ka haddii ilaahay ka dhigo annagoo ixtiraamayna shuruucda dalka waxaan soo dhaweynayaa tartamayaashaanu tartamaynana oo madaxweyne ugu horeeyo iyo musharax Faysal iyo madaxda ku-xigeenadaba waxaan leenahay dee garoonkii waa naga fasaxayo garoonkii waa diyaar waanu tartamaynaa insha allahu wax kastoo la go'aamiyana commissionku go'aamiyo diyaar baanu nahay waxay ilaahay mahadiya maanta inaynu diyaar u nahay
inaan doorashadii tallaabadii hore qaado murashaxiinta la soo saaro waxay la tahay dad odayaal waayeelaan oo doorashada soo maray dee oday weyn oo la waaniyana waa balaayo marka dalka lexjecladiisa iyo shuruucdiisa iyo nidaamkiisa noola waani maayaana idina hogaamintiina waa ogolahay idina iska ilaaliya meel idinka canaanto wax lilaco iska xajiya shuruucdana inoo ilaaliya maanta mahadnaq iyo inaan idin mahadnaqa hawshaa qabateen iyo in doorashada la ballan qaadaya in si xagxagasho la-aana xanaf la-aana loo galo wixii ka soo baxaan lagu wada heshiis ahaado laydinka maqlo dalkana dhibaatooyin badan baa jira oo cadow badan baa leenahay in la ilaaliyo wixii kicinaya fidmo ama xumeynaya ayuun baa naga dardaarana aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna idinkaa maanta judgeskii ah oo dee meeshii hagahayo idin hoggaansamayna haddii alla yidhaho aad iyo aad marka horeta ilahay baa mahadleh subxaana watacaala ilahayga nimcooyinka badanayna siyaan mahadleh ilahayga isku keenkeena waa mahadleh intaa u xigta waxaan aad iyo aad aanu hambalyeynayaa dadaalkan maanta halkaan ku fadhino guushan salaadiinta ka soo shaqaysay ee maanta inaan doorashadii qabsano inoo suurtogeda ilaahay ku hanuuniyey aad iyo aad baan salaadiinta aanu hambalyeynayaa oo ogtihiin dhibaatadii naga soo martay doorashada ilaahay subxaana watacaala maantuu qadaray inaynu shahaadada qaadano xilka u weynay labadeena guruubuu saaran yahay guruubkaygan tartamaya iyo guruubkiinan noo haya siidhiga waa rifriyer baati marka waxa wey labadeenuba inaynu xilka saarno marka u horeysa waynu aaminaa waxaan ilaah baa gacanta ku haya qofkii ilaahay qoray ayuun baa soo baxaya waxayna waynu gacanta ku haynaa marta ma jirto iimaan waynu noqonaa saa uu sheegay madaxweynuhu waxa weye dad waaweyn baanu nahay badanaa kama soo baxdo aflagaadadu musharaxiinta laakiin waxay ka soo baxdaa dadka taageeraya xusbiyada dadka xusbiyada taageeray haddaanad adoo xilkooda ku saaran yahay aanaad xakamayn dee waad la qabtaa marka aadna eedda iyo dhibaataya keenaan ma waxaan leenahay waxa dadku kala dooranaya waa 6 qof nin kasta waxa ka adkaado taageerayaashiisa afligaadada ummaddeenu maanta oo baahna hadala xanaf loo dhexdeena inuu cadowgeenu aad u ahloosan yahay kelmaddan wanaagsan waa sadaqa ilaahay yidhi bal at least aynu ugu deeqno dadkeena kelmad wanaagsan aanu ugu deeqno taasaa maanta iyagu wax u tara maanta fadhigeenaasi wax weyn ayuu mujtamacina ka bedelaya wax weyn ayuu ka bedelaya isku soo dhawaanshahoodii iyo wala noloshoodii iyo mustaqbal raashintoodii wax weyn ayuu ka bedelaya cadowgeena wax weyn ayuu yeelaya marka anugu dee waa mar afraadkan ordayoo rag badan baan lasoo halkan la soo tartamay siiraaye iyo waad ogti waxaan isku diyaarnahay inaan tartamo cigaal waa kii geeriyo ilahay naxariiste markaanu dee xaggee waan aqaanaayo layli ma ihiye waladan baynu ku adkeynaynaa waana mahadsantihin ilahay khayran siiyo ilahay idinku asturo xil weyn baa haysaane team weerkana ka shaqeeya team weerkana wada shaqeeya